waxaan u gudbayaa ummadan reer SSC inuu inkaar baa idinku dhacday oo ganaax baa idinku dhacay rabaaniye ilaahay intaad u noqotaan bacdigeeda war midoobe abaaqaan u dirayo midoobe oo waxaad u midowdaan war cadawgan dulliga oo muslimku sheega iyo gaalkaba leh oo isu kiin baa haystay war dad baa la idinka dhigay intaad u midowdaan dabka geliyo iska celiye war raggu ha kaco war nin badbaadaya ma jiro nin dhammaantiin intaad tira leegtiin geeri baad ku xukuman jiriyo inay cadawgaas idinka argoostaan marka waxba dib ha isu dhigin anytime baa gurigaaga lagugu soo dhici doonaa ay ku dili doonaan si xayira u dhima hadaba ninkan reer SSCyow waa dhimanaysaa oo wallaahi waa dhimanaysaa oo geeri gafi maysid haddaba geeri liidata ha ku dhimane cadawgani waa ku dilayaani war maxay ahayday qorigaaga u soo qaado waxaan ku celcelinayna oo ay jamhaddu ku celcelinaysa jamhadda xoreynta SSC war kaalaya qorigiina soo qaato annagu idinla mid baanu ahayn war waxaa damiirka iyagu diiday oo aanu duurkaa ugu baxnay waxa aad dugsanayso dhammaan inta maxay ahayday waxaa dugsanaysa oo reer SSC oo dulliga dugsanaysa oo ragga dayuusiin wey ninkii aan soo bixin ninkii dayuus qaadanayo waad garanaysaa kelmadda dayuus macnaheeda kii dayuus qaadanayo taagnow oo dayuusnimada ku joog war kii dayuusnimo ka badbaadayo war kaalayo cadowga la dagaalo war ka soo bax meesha oo kaalay nafta hur oo sharaftii way idinka luntay dadnimadii kaalay oo cadowga iska celiye iyagana waxaan isleeyahay intaasi way ku filan tahay wixii damiir leh waxaan u gudbayaa inta la socota cadowga oo adeegaysa waxaan leeyahay markay dhammeeyaan kuwan dadkan reer SSC inta kale ogow adiguna inaad kawanka saaranta dadka sidaa loo gelayaa oo gabadha la qaawinayo oo hortaada lagu kufsanayo waa walaasha ama waa hooyada iyagana waxaan leeyahay xiliyaha laydin qabay waxaad samaysaan ka baxa wax oo qoriga aad dadkiina ugu dulaynaysaan cadawga ugu dulaynaysaan war cadawga kula jeesta haddaydin taa samaynayn jamhadda tani cadawgan way la dagaalami jirtay wayna la dagaalami haddeerna siday ula dagaalami jirtay way la dagaalamaysa waxaanu idinka digaynaa inaan cadowga iska soo hormarin waxaanu digniin kama dambaysa idinku jeedinayna cadowgu inayna gaashaan idinka dhigan baanu idinkana intaasaan leeyahay waxaan ummaddan qurba joogta oo reer SSC aan iyana ugu baaqaya xaaladdu meesha ay maraysaan waad aragtaan dhammaan reer SSC waxaa inoo ballana oo aynu isku baraarujinayna midnimo waxa dulligan inoo qabsaday waa midnimo la'aan waxaan buraha weyshaan ay ku han jireen oo laga raadgoobi jiray inay buurta ka soo degeen wey sababta in waxa ku madarnay ganaxa rabi markii laga yimaado aan isleeyahay wuxuu idinku yimi tafaraaruqa waa midnimo la'aan midoobe dal iyo dibadda hala midoobe qurba joogta hor amaalka gaar ahaan barnaamijka uu wado daaci xeedho ibraahim xeedho kaasaa jamhaddu oo goshahay wakiilka kaa ku midooba barnaamijkaa ku midooba halkaa isugu taga hura hantida ninkii aan nafta huraynow hantida hur midnimaana inoo ballana qodobkaasna qurba joogta reer SSC halkaasna kaga tegaya dowladda federaalka Soomaaliya iyana baaq baan u diray dowladda waxaan u dirayaa ummadda tan calanka buluuga ku dhamaanaysa lagu laynayo kaadu dhaarteen weeyaan oo madaxweynaha
رئيس الوزراء دمان مسؤولين الدولة الفدرالية والعالم كانت هوست أجنتين وردت كانت كهد لا دين وحق ذا السين لا يهي وعالم كاس كله ماليا إذن كنا مخراتبة كتير ومدة الصومالية مخراتبة كتايلها ويدو كل حساب طمية هالضيدين أرهنتتن maxay ahayd marada ku wareysaan waxaan la danaynaya ma doorashooyin ka la danaynaya waayba madaxweynuhu uga hadlaayay ama ra'iisul wasaaruhu uga hadlaayay ama maxay ahayd dawladda dhexe uga hadlaadahay dhibaatadan lagu hayo dadkan ya ummadda Soomaaliyeed iyada intaasaan leh ka hadlo hadaad ka hadli weydaan arrinta dulmiga aad hadaad ka hadli weydaan waa inaad taageerteen dulmiga dadka lagu hayo عالم كبلوغ قال له ليني إلهي بان يذكر حساب تمام ومدة الصوماليين وحن له ومدة الصوماليين وهذا كان دبعتهم ماشي كسعود ذات كني وحكى لكما أي مدن دبعتها ومن مدينة كو وعالم كبلوغ قال له اسبر بتاعه maxay midnimada ay ku dhimanayaan yacalanka buluuga ay ku dhimanayaan war isku soo barbartaag iyadana intaas aan u diray waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba ay jamhadu ku celcelinaysa in la maxay ahayd la midoobo oo loo midoobo cadawkan oo tafraarqo la iska daayo waxay jamhadu soo dhaweynaysaa dhammaan isku dayada abaabulada reer SSC meel kasta ay ka wadaan mid shira iyo mid kaleba jamaadu taana waa soo dhaweeyay waxay ku baaqaysaa aad ugu celcelinaysa midnimo iyo cadawgan in la isku qabsado gacmaha. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.